السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته نبض وديلهانتينبا kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka laacibka oo maanta marti inoogu yahay weeraryahanka kooxda heerka koobaad ee ciidanka asluubta Soomaaliland ciyaaryahan Cabdifataax Ganto. Cabdifataax ku soo dhawaad True Cable TV. walaal Cabdi Khadrow aad baan ugu dhawaay telefishinka True Cable TV. marka koowaad aad baan ku salaamayaa mar labaad waxaan salaamayaa dhammaan dadweynayaasha barnaamijka telefishinka True Cable TV oo ku dhawaay walaal Cabdi Khadrow. waa tahay Cabdifataax waxaynu barnaamijkani saad la wada socoto kulanka laacibka aanu ku qaada dhignaa ciyaaryahan walba taariikhdiisa iyo hayaankii uu soo maray heerka uu maanta taagan yahay. Cabdifataax taariikhdaada kubadda cagta walaal Cabdi Khadrow hadii aan kaaga hadlo taariikhdeeda kubadeed waxaan waqtigii horta waxaan ka soo jeedaa gobolka Gabiley taariikhdeeda kubadeedna hadii aan wax yar kaaga taabto waxaan waqtigii ciyaalnimadii ciyaal xaafadka ka hor ciyaal xaafadda horteeda waqtigii sharabaadka بعدين waan kasoo gudbay oo waxaan soo gudbay heerka Sero Sida Sero Sida waxaan ciyaaray koox Gunners loo jiray waqtigii uu badnaa ku qaatay بعدين markaan Gunners u ciyaariyay waan kasoo gudbay Sero B baan gudbay waxaan gudbay kooxdeeda Horyaal aan soo karo halkan baa ku soo gaadhay maanta kubadda ku soo gaarsay dhamaan ciyaartoyda kooxda Horyaal halkan ma ka salaamaya iyo kabtankayga waqtigaasiba Cabdi Khadrow waqtigii ka bacdi waxaan soo diyaarogtay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa waxaan ka mid noqday kooxda heerka koowaad ee wasaaradda horumarinta caafimaadka anigoo waqti dheer la joogin season la ciyaaray kooxdeeda wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaan ugu wareegay kooxdeeda ciidanka asluubtan hadda ka tirsanahay adduun lacageed 7 milyan oo shilinka Soomaaliland oo ka taariikhdeeda nololeed anigoo metelina tartankii gobolka Jamhuuriyadda Soomaaliland xulka gobolka Gabiley aniga waqtigaasi kasoo mid noqday kasoo muuqday tartankii maamul goboleedka dalkeena Itoobiya jaarka lanahay waxaan ka mid noqday waxaan ku soo baxay liiska xulka maamulka magaalada Dhagaxbuur walaw aan ku haray meel aanan ka filanin tartankaasi oo sidii dhamaadkiya oo reetay xulka gobolka Jarar wata Cabdifataax waynu ugu gudageli doonaa tartamada aad ciyaartay iyo waxaynu u soo noqon doonaa inuu waraysigeena ku bilaabi doonaa kasoo muuqashadii horyaalka heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa oo lagu dhaxarkay Sonia Cup 2020 wasaaradda horumarinta caafimaadka markii aad iimaneysay anagii daawadayaasha waxaad noo sharaxdaa cidii aad heshiiska la saxaatay sidii aad ku noqotay adigoo Gabiley jooga inaad ka soo dhex muuqato Sonia Cup 2020 horyaalka heerka koobaad ee dalka wallahi Cabdi Khadrow waqtigan ku soo biiray wasaaradda horumarinta caafimaadka anigoo Seroeedo igu horeysay waqtigaasi waxaan nasiib yeeshay inaan ka qayb galo tartan garoonka dhalinta laga qabtay waqtiga macallinkii leelinaya kooxda macallin Jaamac Ali Dirar oo hadda ay xitaa leeliya wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa iga arkay tartankaasi aan ka qayb galay waxa uu ila soo xiriiriyay inaan ku soo biiro kooxdiisa wasaaradda horumarinta caafimaadka waan ku soo biiray waan u saxiixay heshiis waqtigaasi aan raali ka ahaa waxaan ka mid noqday tartankii Soya Cup inaan u safto wasaaradda horumarinta caafimaadka 3 game walaw aan dhaliyay 3 gool oo iyaguna waqtigaasi ahaa kooxda wasaaradda horumarinta caafimaadka dhamaan iyagana halkan ka salaamaya maamulkii waqtiga iyo dhamaan ciyaartoydii fanaanadooda wada metelniba aan wada xidhanay waka taariikhda wasaaradda horumarinta caafimaadka Sare kulankii kuugu horeeyay ee aad Hargeysa Stadium lugta soo gelisay ma xasuusta ha aad baan u xasuustaa waa kulankii aan soo karo taageerayaasha aan kuleeyahay waqtigan kubadda cagta waa kulankay barteen dad badan waxay ahayd 2020 bishii saddexaad ayaan u maleynayaa say tahay Soya Cup aniga ku soo galay waqtigaasi bedel kooxdeeda iyadoo ciyaartu socoto 2-2 ayaa markaas soo galay loo saddexeeyay بعدين waxaan keenay goolkii barbaraha ee waqtigaasi 3-3 waxaan dhaliyay markii kalena goolkii afraad anigoo dhaliyay waqti aad u xasaas ahayd oo 88 iyadoo maraysa ayaan maleynayaa marka oo maalintii aan ka soo muuqday wasaaradda horumarinta caafimaadka garoonka Hargeysa Stadium waa tahay waxaad matalaysay horyaalkan heerka koobaad ee ka socda Hargeysa Stadium kooxda ciidanka asluubta Soomaaliland waxa lagu dhaxarkay suuqii kala wareega ciyaartoyda oo taariikhda Soomaaliland markii ugu horeysay xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ka hirgeliyay adduun dhan 7 milyan baa lagu kala iibsaday maalintii ay kula soo xiriireen ciidanka asluubta saraakiishooda iyo u qaabilsan waaxda ciyaarahu sidee lagu qanciyay inaad kooxda timaado wallahi Cabdi Khadrow waqtigii aan ka tagay kooxda wasaaradda horumarinta caafimaadka aan ku biiray kooxda ciidanka asluubta
xiriirkii waqtigaa lala soo xiriiriyay kooxda koley tole ciyaartooyga markuu ku biirayo koox waa inuu ku qanacsanaada maamulkooda iyo ciyaartooyda waqtigaa joogta kooxdaba anna waan ku qanacsanaa kooxda ciidanka asluubta inaan ku biiro. waa tahay iminka waxaad ka mid tahay ciyaartooyada matalaya kooxda ciidanka asluubta Somaliland toddobaadkanna waxaa fooda istaray horyaalka heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa kulamadii 15aad ee tartanka socda wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka asluubta oo ahaa labadii kooxood ee finaanadooda xidhneed tan iminka oo joogto oo ciidanka asluubta iyo wasaaradda caafimaadkood ka timid 2 gool baad ka dhalisay bal dareen noocee ku sameynaysaa kooxdaadii hore u wajahday inaad ka hor timaado goolna aad ka dhaliso. wallaahi markaan kooxda wasaaradda horumarinta caafimaadka ka hor yimiday walow geemkii hore aan ka hor yimiday oo aanan ka dhalin wax goola geemkii dambe aan ka dhaliyay horta farxad aad aan la soo koobi karin bay ahayd maadaama aan ka dhaliyay kooxdii aan kasoo wareegay waqtigaasi hadba funaanada difaacaysa baad mar walba doonaysaa inaad guusheeda gaarsiiso waqtigaasi waxaan difaacay funaanada wasaaradda horumarinta caafimaadka waana jeclaa inaan goolalo dhaliyo waqtigaasi laakiin hadda mar walba waan jecelahay inaan ka guuleysto kooxdaydii hore wasaaradda horumarinta caafimaadka maadaama aan difaacayo funaanada ciidanka asluubta. waa tahay isla toddobaadkii tegay hoggaan cusub baa la wareegay dhanka tababarka ciidanka asluubta Somaliland oo ahaa kabtankiinii hore Mustafa Khamle ka waran sidee u soo dhaweeyeen ciyaaryahanadu. wallaahi markaan ka hadlo macalinka cusub ee kooxda ciidanka asluubta Mustafa Khamle waa shakhsi ka garanaya kubadda cagta wax waqti dheerna kusoo jiray inta aan ka garanaya anigu Mustafa waa shakhsigan soo karay kooxda ciidanka asluubta halkan uu ka qaadi karaa ciyaartooydina aad u soo dhaweysay waana markaad isku ciyaartooy haydan uu ku fahmi karaa waxa waxaad u baahan tahay iyo waxaad diidayso Mustafa waxaan soo karaa waa macalinka hadda igu fiican arkayo intaan. waa tahay horyaalka heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa wuxuu ku sii jira dabayaaqo waxaana haray intaan xasuusnahay 3 kulan oo kaliya halkeed isleedahay way ku dhameysan kartaa kooxdaada. wallaahi kooxdayda ma rajeynin inuu kaalinta shanaad ay ilaa waqtigan ay ku sii jirto anu mar walba waxaan ka filanayay inay kaalmaha sare gasho 1 iyo 2 iyo 3 saddexdaasi ayna ka soo degin walow qadarka la jiraan oo ku bidween waqti walba isbedesho annagu 3 geem oo horeeyay ilaa 4 geem oo horeeyay waxaan rag kaalinta labaad ku jira hadda laakiin waxaan ku jirnaa kaalinta shanaad waxaan rajeynayaa inaan ka gaarno kaalinta saddexaad aan ku dhameysano tartanka. waa tahay si guud iminka waxaynu u eegi doonaa Cabdifataax Ganto iyo noloshiisa gaarka ah saaxiibadiisa kubadda cagta tababarayaashii inta badan kubadda cagta soo leeyahay aynu ku bilowno wareysigeena bartamiisi ku guda jirna ciyaaryahan Cabdifataax Ganto waa mid kamid ah weeraryahanadii ugu wanaagsanaa ee waqti xaadirkan ka soo muuqday horyaalka heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa qof walba wuxuu isweydiinayaa horta yaa ku dhaliyay inuu noqdo nin ka ciyaara booska weerarka. wallaahi waqtigan kubadda cagta aan bilaabay booska weerarka waxaan ahaa ciyaartooy aad u jiryar booska kaliya ee ciyaartooyga jirkeed leh oo ka ciyaari karaan waa saddexda weerarka amba striker amba labada giftin waqtigaasina anigoo jiryar ayaan noqday inaan ka mid noqdo striker dadkii aan waqtigaa kubadda wada ciyaarin waxay ku dhiliyeen inaan ka ciyaari karo halkaan xirfadeeda leh. waa tahay waa kuma saaxiibkaaga kubadda cagta. wallaahi walaal Cabdikhadar walow aan ku leeyahay saaxiibo badan kubadda cagta laakiin hadda saaxiibkayga igu dhow aan soo karo kubadda cagta wuxuu ugu dhow yahay waa laba shakhsi waa kabtankayga waqtigiisa Nairobi kooxda horyaal Maxamed Cumar Maxamuud Taawi ku magac dheer yahay iyo Mukhtaar Axmed Maxamuud Mukhtaar Ndiso oo ka tirsan kooxda ciidanka qaranka ee Gaashaan. Cabdifataax waxaad ka mid tahay weeraryahanada horyaalka heerka koobaad ee ciyaaraya sanadkan kulamo badan baad ciyaarteen imka kulamadii 15aad buu horyaalku socdaa yaad isleedahay waa daafici kuugu adkaa ee aad ka hor timaado tan iyo intii uu furmay horyaalka heerka koobaad. wallaahi Cabdikhadar waa su'aal aad u wanaagsan walow aan hadda aan ka baqan karin difaaci soo wajaha haddana difaaci igu fiicnaa sodan karo uu ka ilaaliyo shabagiisa waa Maxamed Xasan Gabiyaay si fiican dhanka kalena gool hayayaasha waa kuma gool hayihii yiri alla ilaahay Mustafa ma dhaafay maanta Cabdifataax ma dhaafay walow goolayaal far badan ay liiga ka soo dhex muuqdeen oo aad u wanaagsan haddana gooladahan shabagiisa isniga ilaaliyo waa ayaan la xanjo gooladaha dawladda hoose Hargeysa waa tahay waxaad ka soo muuqatay horyaalkii ciyaarihii gobolada dalka oo u ciyaareysay xulkii gobolka Gabiley ka soo muuqashadii aad ka soo muuqatay horyaalka ciyaaraha gobolada ee Somaliland oo mid kamid ah heerarka ugu sareeya ee ciyaaryahan Somaliland jooga ka gaaro kubadda cagta
markii lagu yeedhay dareen noociyay kuu samaysay halkeed joogtay ma ku qanacday inaad Gabiley matasho wallaahi waqtigii la xulanayay tartanka gobolada Jamhuuriyadda Somaliland waxaa laga qabtay tartan gobolka Gabiley tartan sareeya anigoo ka soo mid noqday waqtigaasi kooxda Yaxya Sports Center waxaan nasiib yeeshay inaan ciyaartoy noqdo ciyaartoyga goolasha badnaa tartankaasi anigoo ka soo dhex muuqday 6 game dhaliyay 16 gool waxa de caqliga galaysan maaha marka dhan la eego haddana macallimiintii waqtigaasi xulisay gobolka waxaan u nasiib u yeeshay inaan ka soo ciyaartoy matali karayo gobolkiisa ama qabo waa tahay waxa jira kubadda cagta Somaliland intii aad in walow aad tahay ciyaaryahan aad u daayar intii aad daawanayso kubadda cagta yaad isleedahay waa xidigii ugu wanaagsanaa ee aad ka Cabdi Fataax ahaan aad aragto kubadda cagta Somaliland wallaahi waqtigii aan daawanayay kubadda iyo ilaa waqtigan ku soo jiro ciyaartoygii ugu fiicnaa kubadda cagta ka arko waa Cabdikariim Maxamed Xirsi Cabdikariim Guji kabtanka gaashaan waa tahay haddii lagu yiraahdo kubadda cagta 12 ciyaaryahan ka xul oo waliba samankan intii aad la ciyaartay oo kaliya ciyaaryahanada kale haday dad ayna la ciyaarin ku darsan jiray Cabdi Fataax ahaan 12 ciyaartoy oo kubadda cagta oo aad la ciyaartay soo koob haddii lagu yiraahdo yaad ku soo koobi lahayd wallaahi wala Cabdi Khadar waa su'aal aad u wanaagsan walow ciyaartoyda dalkeena maanta ayna kala dhicin haddana inaad kala doorato waa wax wanaagsan intaan la ciyaarin baa daawada kubaddooda haddii aan goolka ka bilaabo gooladaha waxaan ka dhigi lahaa Cabdiqani Saleebaan Caynaan iyo 4 iyo 5 waxaan ka dhigi lahaa Cabsalaan Sallo iyo Mukhtaar Hindhiso 2 iyo 3 waxaan ka dhigi lahaa Guleed Cabdi Maxamed Guleed Alfis iyo Mawlid Cabdi Xasan Mawlid Oday waxaan ku ciyaari lahaa afar dhexa 6ka waxaan dhigi lahaa Maxamed Cabdi Xasan Jufo waxa uu helinaya Cabdikariim Maxamed Xirsi Guji iyo Khalid Cali oo kooxda dowladda hoose ka tirsan iyo Axmed Cali Warsame Axmed Hindi laba weerar ku ciyaaraya labada weerar waxaan kala dhigin lahaa guleedkiisa oo wasaaradda horumarka caafimaadka ka tirsan iyo Fadhi Najax oo ka tirsan kooxda dowladda hoose waa tahay gabagabadii barnaamijkeena inuu soo gaarnay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Somaliland dhawaan buu furmi doonaa Cabdi Fataax ma isleedahay waa sii joogi doontaa naadigaaga ciidanka asluubta wallaahi Cabdi Khadar waa su'aal aad u wanaagsan kuma tala jiro hadda inaan ka tago kooxda wasaaradda kooxda ciidanka asluubta waana rajeynayaa inaan waqti dheer sii difaaco fanaanideeda ugu dambeyntii maxaad halkan ka faraysaa naadigaaga iyo taageerayaashaada dowladda hoose ugu dambeyntii baynu soo gaarnay Cabdi Fataax Ganto halkan yaad ka salaamaysaa taageerayaashaadii maxaad leedahay ciidanka asluubta iyo shakhsiyadaada wallaahi dhammaan horta halkan waxaan aad uga salaamayaa family-ga hooyadii aabbahay qorayso iyo walaalkii Maxamed Deeq Axmed Cali iyo Guleed Axmed Cali halkan aad baan uga salaamayaa waxaan kale ka salaamayaa taageerayaasheeda kubadda cagta oo kookii ay Mustafa Maxamed Migaag Booq oo laba ka yahay Cabdiraxmaan dadkan igu dhiirigeliya kubadda cagta waxaan halkan ka salaamayaa salaan diiran halkan uga salaamayaa macallin Jaamac Ali Dirar waa macallinkan socon karo caasimadda isaga maanta ku baray waxaan kale halkan ka salaamayaa telefishinka True Cable TV oo igu soo marti qaaday barnaamijka maanta oo aad ku ka tahay Cabdi Khadar ahaan waxaan kale ka salaamayaa kooxda ciidanka asluubta dhammaan iyo macallin Faysal Dheere aad baad mahadsan tahay daawadayaal intaasi waxaynu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii kulanka ciyaaryahanka oo maanta marti inoogu ahaa mid ka mid ah ciyaaryahanada da'da yar ee ka soo dhex muuqday horyaalka heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa waa ciyaaryahan Cabdi Fataax Ganto oo dhanka weerarka uga ciyaara kooxda ciidanka asluubta Somaliland Cabdi Fataax aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaadanay aad baad